وادين مهد علينا يا كلين قبل ولا شيء هالكن كهاد ليسي قبله كلبا أو عقلك يفكرك وناكسن سوجيدي وحان جعله مركور إن نكب اللعبة مالمهان وحان سعدال كمريني غيبة كمدة ديجانا ده قلمدك وإنتي نحلي حفلة دي جوكتي وقدام بيسي أي كسر دماتي إن ليس لقرتي إن مجال مدح ذا قلمدك أهدو سمراب أي نقطة مجال مدح دي قلمدك si marka hawshaasi ay u dhaqan gasho waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa Sheekh Shaakir iyo dhammaan shacabka reer Galmudug gaar ahaan shacabka reer Dhuusamareebeed oo ka shaqeeyay in safarkeennu uu ku dhamaado guul halkaana waxaa isugu imaan doona dad Soomaaliyeed oo fara badan oo Galmudug iyo meel kasta ka soo jeeda sababtoo ah waxaad saldhig u noqon doontaan dawlad midaysan tayaysan toosan oo ay leeyihiin dhammaan dadka reer Galmudug heshiiskaas halkaas ka dhacay iyo wanaaggaas bilaawmay maadaama haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay iyagu yihiin lafdhabartii bulshada Soomaaliyeed waxaan aad idinkugu boorinayaa inaad ka shaqeysaan hawshaas bilowga ahi inay miro dhal noqoto si aad u siisaan dadkiina adeegyada ay u baahnaayeen intaas ka sokow waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo dadaalka dalkiina aad ugu jirtaan meel walba oo waddanka aan tago ama xamar ama magaalooyinka kaleba markii laga hadlaayo wadaninimo iyo qarannimo markii dhib dhaco markii loo baahdo in la isu gurmado waxaa mar walba ragga ka soo horeeya haweenka Soomaaliyeed ku dhawaad 30 sano oo dalkan dhibaato ku jiray idinka la idinku fakaday maadaama idinka la idinku fakaday waxaan rabaa inaad ku dadaashaan midnimada idinka idinku hartay in dadka kalena aad gaarsiisaan annagana waxaan cadeynaynaa inaan idinkala shaqeyno wax walba xuquuq ah oo aad leedihiin inaad heshaan haddii Ilaahay yiraahdo wax walba oo xuquuq u leedihiin oo xafiiskayga idinkaga maqan waa la idinkala shaqeynayaa waxaana idin kugu bishaareynayaa halkaan shaqada ka bilaabatay aan ku soo noqon doono mar walba ii baahantiina waxaan leeyahay Sheekh Shaakir iyo cid walba in la ii kiin keeno hadda waxa idinka hadlaysanna u sheega nafiso iyo xildhibaanadiina halkan fadhiya si aan idinkala shaqeyno baahida aad qabtaan ugu dambeyntii waxaan leeyahay rajo weyn ayaa u muuqata reer Galmudug iyo reer Dhuusamareebeed maalmahan soo socda waxaa idiin imaan doona dad badan gogol ayaa halkan la dhigi doonaa dib u heshiisiin ayaa lagu qaban doonaa doorasho ayaa ka dhici doonta ciidamada dawladda dhan ayaa imaan doona halkan soo degi doona hay'adaha dawladda federaalka oo dhan ayaa imaan doona hay'adaha caalamiga ah oo dhan ayaa imaan doona waa in indhaha aad furtaan soo dhaweysaan ka faa'iideysataan kana shaqeysaan inaan hore u soconno